waxa ka bedelka dastuurka waxay u baahan tahay dariiq bay leedahay waxa ugu weyn waxa weeye waxa la constituent assembly ina gobolada iyo deegaanka dadka laga soo xulo oo laga doodo maxaynu rabnaa xageenu socona see wax u rabnaa niman madax oo meel iska fadhiya dastuurka aniga iyo adiga iyo ninkaas kamid ah in iyagu iska qorqortaan maaha abaanduulaha dawladda Soomaaliyeed prime minister ka weeye awoodda isaga leh Hassan Sheikh was ceremonial president mar Allah markay isaga la doorto prime minister ka shaqada qorto wax dastuurka ku jirta ninkaas ka mas'uul meesha waliba ra'iisul wasaaruhu ku taageeray Hassan Sheikh oo yiri madaxweyne ku xigeen baa sameynayna war madaxweyne ku xigeen shacabka Soomaaliyeed baa bedeli karaya shakhsi ma bedeli karaya laakiin inay hadda waxa lagu heshiiyay in doorasho qof cod ay dhacdo xagee ka dhacaysa dooranaya adeero ma bandiira leeyahay ka dhacaysa maanta Soomaaliya hatta mucaarid kama jirto shalay baan waxaan maqliyay wiilka dheer ee timaacad maxaa loo jiray Cabdiraxmaan Shakura kaas ayaa maqlay isagoo hadlaya shalay adeero waxa deyn laga cafiyay nimankaas horta ma jiraan oo waay dawaan ay jiro website kooda gal oo website ka World Bank iyo IMF ka iyo meelaan ay sheegayaan meel World Bank iyo IMF dadka deynka ku cafiyaan ma jiraan horta anu taa waa ku raacsanay Xasan Sheikh anu waxaan qabaa in hubka Soomaaliya laga daayo oo ciidanka ay dhisato oo nimanka dagaal la gasho waxaana wax aad iyo aad u qurux badan maanta inay SSC-daas inay lugi taagtay dadkii fikradda lahaa garad jaabacna way fiirsanayaan waa garaadkeegi jaar baynu nahay dadkii SSC-ga Khaatumo halka Nairobi ku asaas xag la toosiyay garad jaabac iyo aniga ma adiga ha ku soo dhawow Royal oo guryaha naansan ugu imow reerkana la kaalay adaa u riyaaqiye waraas qabow Royal reer lagu dhaqo ruuxdu ay ku dagi ruun hooyada iyo raaxa gabadhaada riyadoodii weeyaan halka lagu hodmee hoy laga helaa iyadoo heer sareyso ragna soo hanaashay waa Royal shirkadda dhismaha ee Royal Modern Homes waxa ay dabaqyo mataanaha Twin Towers ka dhisaysaa xaafadda Parklands ee magaalada Nairobi guryahan waxay leeyihiin qolal waasac ah garoon weyn oo carruurtu ay ku ciyaarto masaajidkii gymkii supermarketkii goobtii dabaasha dugsiyadii quraanka iyo madarsadii baakinada gawaarida waxa sidoo kale guryaha Royal ku xeeran xarumihii waxbarashada iyo caafimaadka waxa cajiib ah in qofkii guri gadanaya aysan jirin percentage ama qiimo gaar ah oo lagu xirayo balse uu iska bixinayo wixii uu awoodo waxay fafaahintaasi dheer kala xiriir nambarada hashada ka muuqda waxaan imanaynaa dawladda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud laba sano ayay jirsatay madaxweyne Xasan waa madaxweyne fursad mar kale helay oo wuxuu noqday madaxweynihii koobaad mar dalka soo hogaamiyay haddana mar kale dib loo doortay laba sano oo madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud uu xilka hadda joogo rajo badan laga qabo maadaama hore dalku uu soo hogaamiyay inuu wax badan saxo oo khaladaadkiisii hore uu wax ka bartay dawladdiisii hore khaladaadkeeda wax ka barto laba sano kadib maxaa ku muuqda madaxweyne Xasan wallahi anigu walaal waan ka xumahay in afkayga ka soo baxdo horta wuxuu ku khaldan yahay inuu dastuurkii Soomaaliyeed ee 1960 loo coday inuu isku dayo inuu bedelo madaxweyne ku xigeen buu rabaa laakiin dastuurka hadda wax laga bedelayo ku cusub waa kii hore ma ahayn dastuur la sameyn karayo oo la isu iman karayo ma jirto ilaa war dhul dhan baa maqan Puntlandkii baa maqan oo Somalilandkii baa maqan waliba khaasatan Somaliland waxa jira sahankii labadii gobol ee unionkii sameeyay waa labada gobol dastuurku doonay inuu sameeyo qayb dhan oo dawladnimadii Soomaalida ay ka maqan tahay maxay tahay wax ka bedel baa lagu sameeyay wax ka bedel looma baahna waxa ka bedelka dastuurka waxay u baahan tahay dariiq bay leedahay waxa ugu weyn waxa weeye waxa la constituent assembly ina gobolada iyo deegaanka dadka laga soo xulo oo laga doodo maxaynu rabnaa xageenu socona see wax u rabnaa niman madax oo meel iska fadhiya dastuurka aniga iyo adiga iyo ninkaas kamid ah in iyagu iska qorqortaan maaha marka waan ka soo horjeeda kow inuu yiraahdo madaxweyne ku xigeen inuu sameeyo wuxuu ka cararaya dastuurka waxay Soomaaliya waxay sheegaysaa qofku laba taan buu leeyahay Xasan Sheikh markuu tan dhameeyo ma tartarmi karayo kuma soo noqon karayo madaxtooyada waayo dastuurkii baa qoran oo waxay leedahay madaxweyne laba jeer buu soo galaya meesha laakiin mar buu dhaxda ka baxay ha ka baxay kuma qorna dhaxda ka baxay miyay ku qoranta waa laba jeerna waa sameeyay waa ku fadhiistay kursiga marka horta taas waa ku khaldan yahay ninka odayga ahaa midda labaad
wuxuu noqday madaxweynihii ra'iisul wasaarihii wasiirka khaarijiga wasiirka amniga wax oo dhan oo Soomaaliya ka jira Xasan Sheekh baa noqday see ku yahay dalku wasiir arrimaha ra'iisul wasaarahan maanta jooga juuq ma yiraahdo seven u dhihin soo kii halkan yimaaday war hay yimaadeen talada abaanduulaha dawladda Soomaaliyeed prime minister ka weeyaa awoodda isaga leh Xasan Sheekh was ceremonial president mar Allah marka isaga la doorto prime minister ka shaqada qorto waa dastuurka ku jirta ninkaas ka mas'uul meesha madaxweynaha ma hadduu rabo inuu saarano waa inuu baarlamaanka u maro marka ra'iisul wasaarihiina isagu isku xisbi weeye marka meesha uu soo galiyay bay isku afgarteen arinkaas qadiyadaasina aad iyo aad bay anigu waan ka xumaaday waliba ra'iisul wasaaruhu ku taageeray Xasan Sheekh oo yiri madaxweyne ku xigeen baan sameeynaa war madaxweyne ku xigeen shacabka Soomaaliyeed baa bedeli karaya shakhsi ma bedeli karaya laakiin inay hadda waxa lagu heshiiyay in doorasho qof cod ay dhacdo xagee ka dhacaysa adeero ma bandiira leebay ka dhacaysa kama xagee ka dhacaysa inamadii baa jooga oo qori meesha ku wata deegaanada nabadda ka dhacay waa xagee bal iisha gobolka nabadda ka jirto xamar villa Soomaaliya baan ma dhaafi karayn madaxweynuhu waa fiican inaad moogtahay runta la isu sheego Xasan Sheekh markuu awoodii oo dhan ee decision making ka isagu isku reebay te markuu khaldamo umad dhan baa la jabaya dibku waa taa muxuu baahan inuu sameeyo marka in rag adag oo oran karaya madaxweyne waa khaldanta inuu shaqada siiyo nin la yiraahdo Abraham Lincoln oo aan aad u xiiseeyo ayaa maalintii la doortay wuxuu shaqadii wada siiyay mucaaradkii oo dhan ee meesha fadhiyay marsaal weydii maxaad mucaaradka u wada dhiibtay meesha wurdeeyo inaan saxsanahay baan doonaan ogaado ilaa nimankaas fikrad kale qabaan laakiin inaan dhageysto way maanta Soomaaliya hatta mucaaradka ma jirto shalay baan waxaan maqliyay wiilka dheer ee timaacad maxaa loo jiray Cabdiraxmaan Shakura kaas ayaa maqlay isagoo hadlaya shalay waxa meesha ka socda waa wixii aanu la Soomaalidu la dagaalantay yes tali taas waanu diidnay Soomaaliyaanu diidin marka insha Allah ilaahi Soomaali madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo gole ka fiican maanta tajira hayno keen laba sano maxaa u qabsan islaamada madaxweyne Xasan miduu ku saxsan yahay oo shabaabkii waa la dagaalamay wuu isku dayay laakiin warkaan anigu hayo waxa weeye sidii la rabay muu samayn marna waa gala marna waa ka baxa laakiin deegaano badan buu qabtay waa jiraan intaas aan sheegay oo 15 sano ka maqnaa waa sida deegaanadiisa waa ilmaadeeryaashiisa waa tolkiisa Soomaa ahayn meeshu qabsaday Soomaaliya dhuma tala waa maya laakiin de meeshu ka soo jeedo buu qabsaday soo lama shirin nimankaasi rumba la rabo Soomaa sadaqada maxaa la yiri de ma sadaqadu waa meesheedii laakiin de ninku meeshii uu isagu xoreystay soo aadan yabaal ma yahay halkaas uu ka soo jeedo aadan yabaal ka bilaabi lahaa ما حاجة بالله من هذا يبال بقولوا كبلاب أنو ساسا قبا هدو تجي لها بولند وكذا قالوا لها حاجة يو بوساسود يو ميراس وحبين نقول لك لكن مثل وان نبض ما كل غير ما بولند وان نبض لكن ده واتشرا دبعت قلقلا مش بورتا واتقرنا يسا دين واتشرا وحبا يرتشرا أنا جو واحد ربنا هورتا سكيورتي هداني تشري وحبا ما تشرا هورتا إنا ماذا أسوا إنا ماذا أسوا ميل بكسو كعاد هيري كي ماده هو يا داري ما قرأت إنا بيلا دهسون شباب كتبت كوسو مران ده ولا في عيه النبات جود با ميسا كبر بوسان هذا النبات ده يو ترحم بحين تجري له شباب كنا متشرين قال هذا كتير أنا ونسار له مركا هذا وقوي ويكتو سيسا إنا ترحم بحين النبات إنا كدي كريس إن كستا أو إن كان ماشي شوجا وموسى بحين ليلا أو إن شاء الله كهذا دون أو النبات دلات كله marka de waa sida madaxweyne Xasan labadii sano hadda uu jiray waxay dawladdiisu ku doodaysaa in cunaqabateynta hubka la qaaday ku guuleystay inkasta uu hadda process wax soo socday in deyntii laga cafiyay Soomaaliya in bariga Afrika Soomaaliya ay ku biirtay Turkiga wuxuu la galay heshiis 10 sano oo difaaca badaha Soomaaliya ah mayna ku muuqanin guulaha waaweyn ee dawladdu ay gaadhay sharciyo badan waxa jiray baarlamaanka la mariyay inta hadda waxa weeye madaxweyne Xasan
uu joogay marka guulaha waaweyn ee la taaban kara ee madaxweyne xasan dawladdiisu ay gaartay kuma muuqato waxa mooshi dayaan wasiirka difaaca Falastiinkii wadankan Israa'iil qabsatay aan u ducaynayno inay xuriyad inay ka helaan baa wuxuu yiri Masar baanu kaga helnay dagaal laakiin 3 milyan oo Masriin ah ayaanu Cairo sacab ku tumay oranaya waa guulaysanay marka si aanu carab ka guulaysano male waanu ka guulaysano waa sacabkana way tumaa adeero waxadeyn laga cafiyay nimankaas horta ma jiraan ooy dawaan ay jiro website kooda gal oo website ka World Bank iyo IMF ka iyo meelaan ay sheegayaan meel World Bank iyo IMF dadka deynka ku cafiyaan ma jiraan waxay sameeyaan farsama jira lagu sameeyo leeyahay deynta waa la cafiyay anigu am an economist so I know about it waxa koow ka ah World Bank iyo IMF ta waa bank account oo kale nin walba percentage buu leeyahay uu meesha gashado inta aad adigu bixisid ayaa de tala ku leedahay meesha haddii deynta laga cafiyo waxa laga cafin karaya for example waxa interest ka aad soo accrue garaysid oo la yiraahdo least developed country oo crisis baa ku jirta marka waxba laga cafinaya laakiin principle-ki haddii dadka ka cafinayaan annaga ma inaga cafiyaan idinkee Kenya annaga naga cafin sidee naga cafiyaan laakiin Kenya dawlad dhisan baa Soomaaliya dawladda waa weeqaysa dawladdeeni waa weeqaysa maanta economic trouble bay ku jirtaa meeshan Europe uu tagay madaxweynaha oo iriga cafiya waa diiday documents ka iyo sida wax u yihiin taana waa ku tusi karaya waa adaa daabici doona midda labaadna waxa weeye arinkan marka halkan deynta markaan adan ku yar hakano muuxadada Soomaaliya deyn laga cafiyo anigu ma qabo in laga cafiyo anigu waxaan qabaa waana ku sheegaya waxa weeye number 1 soddon sanadood bay dawlad la'aan ku jirtay Soomaaliya 30 years marka inay meesha tagto deynta oo dhan laga cafiyo horta xaq bay u leedahay because meesha de wax dawlad ma jirin laakiin nimankan international financial system ka haddii maanta ay dawlad ka cafiyaan dawladihii African iyo third world ka wixii la oran jiray oo dhanba application ka sameynay oranaya anaga ina cafiya Kenya ayaa isku daysay inay taa samayso waa laga diiday marka financial system ka lagu caafiyay ayaan kala garanaya oo idinkuna ina investigative journalism baatihiin inaad soo baadhaan oo IMF ka iyo World Bank xogteedii soo garataan in bahasha la cafiyo inaan la cafin laakiin dawladda Soomaaliya waxay sheegtay in deyntii laga cafiyay marka ma dadka ma been baa loo sheegay anigu waxaan qabaa waxyaalaha laga cafiyay inay tahay waxyaalihii 30 sanadood ku soo kordhay markii dawlad la'aan dulsaarkii iyo dawlad la'aanta kaga jirtay laakiin deymihii lagu lahaa Soomaaliya caadiga ah ay qaateen desee loo cafiyaa only dawlad ba caafi karaysa ruush way caafisay way tiri anigu weydin caafin marka arinkaasi waxaan u jecelahay ba inaad whole program intaad ka samaysid waraaqana soo bandhigtid because anigu waxaan qabaa inay qalooc ku jirto waa guulaha kale dawladda gaarto waxa kamid ah cunaqabateynta hubka laga qaaday horta anigu taa waa ku raacsanay Xasan Sheekh anigu waxaan qabaa in hubka Soomaaliya laga daayo oo ciidanka ay dhisato oo nimanka dagaal la gasho dad ba aaminsan marka Xasan Sheekh wuxuu noqonayaa beel marka hub la siiyo war beeshu haday dawladda dhan iyo xukuumadda Republika haday ka soo saariso al-shabaab taageersanahay annaga muhiimaddu waxa weey in laga saaro shabaabka midda saddexaadna Maxamed Siyaad ba 26 iyo 27 division haysta saddex kun oo wiilo reeshaq saxaaqi ayaa la dagaalamay oo meesha ka tuuray marka cid maanta hub dadka ku qabsan karay ma jirtay Siyaad barashaysa ya ka saaray SNM burcaway ka saareen iyo Soomaaliya la dagaalantay qabiilo badan la dagaalantay qabiilo badan waa run qabiilo badan waa jiraan SNM qayb ma ka ahayd aniga waa garanaysaa horta anigu qadiyadeedii waa aad baa la garanaya laakiin waxba yaanu xeer gooniya ii sameyn buu xoolaha isiina xasha lillaah nin labin ka haysti xumi baa yaab war meesha SNM ta qabsatay mar waqooyiga markii dambena qolada SSDF iyo USC baa intii kale laakiin hadana SNM meesha soo gelin meesha waxba de kama ay socon lahay taasuna waa taa anigu se waa ogtahay inaan unionist yahay oo adag
oo keliya ahaa 25 sanadood oo aan aaminsanayn sheekadaas laakiin xaqiiqadu taasay ahayd jabadaas meesha qabsaday waqooyina way ka bilaabtay marka waxaan u soo jeedaa hadalka maanta de midhaheedii maxay tahay SNM waxay samaysay waanu imanaynaa madaxweyne xasan maan waxay halka ka weydiin madaxdii dowlad goboleedyada iyo kuwii dowladda federaalka yaa shiray gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaana la soo saaray warmurtiyeed waxa ku qoran in la hirgeliyo dhamaystirka dastuurka doorasho qof iyo codahana la qabto doorasho soo socda Ilaahay yiraahdo waxa ka maqan Puntland oo shirkankii ka horeeyay aan ka qayb galnay golaha watashiga Somaliland dabcan in kastoo xubnihii ku matalayay ay ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu joogay Puntland ida waxa weeye madaxweynihii Muuse ka soo qayb galay shirkan iyo kii ka horeeyay midna ra'iisul ku-xigeenka ra'iisul prime ministerka ku-xigeenkiisa ilmaadeen rumaan adiga hay aqal baan wax Saalax ana aqal wax ada oday wax odayana wax oo ku matala marka ergaaba ma soo gal karin ما يمكري إلى حاج نور بمشي تشوجو كتليا دولك يو إلى محمد حاش لكن ده يوم كي حمل شوان وحيد قندة وقوي قاتل هو ولي جود به لكن دورشو ماشي أنا نقول وجه كي ما عاديه ده كمان دي كريسو ما ملكي حمر ده مال يقول كريسو مشرته مركا واحد لو بهيه رنتي وحوي ريكونسيليشن باللو بهيه reconciliation dib u heshiisiin waxa loo baahan yahay yalla heshiisiin marka shacabka Soomaalida islaayay war meesha ma nabad ba ka tahay hadda waa caadi ma beela hadda islaayay marka laga reebo kuwa dirisaa mooy hadda beelas halka shalay la sacaanood wata taxabadi ka dhaxaysay laakiin la sacaanood Somaliland baa waxa way dadka leenaysa ma waa runta Somaliland way Somaliland Somaliland ma hada Muuse bixiyo ciidankii uu amray oo gardaran oo dadka meesha ku laayay oo criminal behavior ka ku sameeyay ayaan aad halka ka cambaaraynay horena waan u cambaarayay waxana wax aad u qurux badan maanta inay SSC daas inay lugii taagtay dadkii fikradda lahaa garad jaabacna way fiirsanaya waa garaadkeegi jaar baynu nahay dadkii SSC ga khaatum halka Nairobi ku asaasay xagla toosiyay garad jaabac iyo aniga ma adiga waa noolihiin raggaas waa sheegi doona ada waata ma qayb ka oo waxaan rabay in khaatum SSC inay istaagto negotiation la gasho Somaliland waliba Ahmed Maxamed Silaay de qasami qaybsiga reerkaas meesha reerkan ka soo jeeda baa kuraasida buuxiyay ma adadiyad maamul ku dhawaaqdeen oo sameeysan de maamulka waqooyi war heede cali khaliif galeed Allah u naxariisto soo tan maalintii dowladdu dhulka maraya oranaya war bal aan isu imaano war bal sool waxba meesha kuma haysato iyo sanaag barigay waa jirtay de runtii way anigu berigaas aan yaqiinsanaa oo aan sheegay marka waxa aaminsantaa dadkan ra'iisul in lagu dulmiyay awal aad waad ma meel madaxweyne soo marnay oo saddex madaxweyne reer Sheekh Saxaaq midna dir ah xagee lagu dulminaa adeer runteedii weeye waxa weeyaan meesha dulum baa ka dhacay dambigana waxa la ninkan Muuse Cornel Muuse bixi oo hadeer beelihii SNMna galbeed iyo bari u kala tuuray waata 33 sano jirsatay waxa loo dabaaldagayaa 18 May Somaliland 33 sano jirsatay Muuse 2000 17 baa la doortay ilaa hadda isaga madaxweynaha dabcan rajana uu qabaa inuu markaa soo laabto 33 sano kadib Somaliland noocee ayaa ku muuqata wallahi waa failure aad weyn failure ka meesha ka tahay baa ku sheegay 60kii niman baa buurad la taagna baarlamaankii British Somaliland oo nimanka gudaha ku jira waa madaxaydi ku dhufanay hadii aad calanka hadii aad la midoobin koonfur hadii aan koonfur la midoobin maantana halkaas ay buurad la taagan yihiin waxay leeyihiin hadaan laga go'in wadanki doonta war waa dadkii u weeyaan waxay ku tusisaa marka meesha inay leadership ku inay ka maqanta aniga Ahmed Xaashi ahaan
anigu beel ma matelo reerna dee halkan dee waad garanaysaa halkan Soomaali ahaan baan ku jirnaa deegaanka Nairobina annagaa samaynay marka anigu dee awooga halkan baan anigu dadkan jalwada iyo qowmiyada meesha jira iyo kukuyada ayaan anigu dee ku jira oo siyaasadda Kenya ku jira laakiin tacliinteedii iyo aqoonteedii afkeegi waa ka hadli karaya waxa mandaqada Afrika ka socda marka anigu waxaan qabaa inay Somaliland inay meel fadhiisato oo runta isu sheegto tiraado sahankii baynu ahayn labadii gobol nimanka aan wada hadalno bahashan aan wada qaybsanno maamulkii Soomaalidana hal dib loo soo celiyo waxaan u shaqeynayso macnaha ma i'tiraafka wax i'tiraaf ma jiro سمح كنت لي ده رير لما احتراف كريو ما رير بلا احتراف يوم ما امسين ريرين waxay ده waa qalad de soo Soomaalida oo dhan baa u jeeday mandaqadan 30 sanadood bay meesha joogan hadii reer ahayn soo lama احتراف waa la احتراف la ده meesha wixii ma jiraan mana sheegi shacabkoodina uma sheegi karayaan because cajilad beena bay u dhiibeen been selot tikra marka ده beentayna runta laga sheego anaa u sheegaya u sheeg marka waxaan u sheegaya waxaan idin socon maayo Soomaaliya waa mid idinka calanka saare Hargeysa 1960 June wadanka idinka xoreeyay maskaxdii Soomaalida idinka ahaa hadeerna hadaa ku soo noqon weydaan saan baa loo joogay idinkana bay idin tarantay hadhowna isaaq dhaxdiisa lagu kala firdheynaya maanta waad arkaysaa waxa meesha ka socdo musabix wixii dadka caynka ahaa ee isku duubna oo bariiskoodii wada cunay ayuu habar ka wada dhigay maxad ka habar waxa weeye asxaabtii miyaad arkay nin walba tollaahi buu seef la soo baxay hadaanu reer hebelnahay saasaanu yeelina TV-ga maanta hadaad tagtid waad fajacaysaa annagu hadaanu hebelnahay gobol baynu baahnay annaga hadaanu hebelnahay gobol baynu baahnay waa wax la yaabo weeyaan مركز اليقين للقرآن الكريم وعلومه مراكزته كلا مدن مركز اليقين معناها بكجرو ومدن لما هذا شيء ومش هتربتين مدود السجيسين مولا يدن كسمة ما شاء الله لها مركز اليقين ونيروبي كويا لو حب الشدة وجيسينيا إنه أسكر قيب أونلاينها ولو برتحفظ القرآن الكريم كه هنقاد عربي الصومالي كسحيد عربك تفسير القرآن الكريم كه دعوينك أحاديثه يموتونتي كلا سيدا فقيقة وعيفا فاهنين تاسير كلا حرير نمبرضا شاشة كم موضة